الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة الفطر قال الله يراب واجبية وحي راشن بري قال استعمالي ساعة ولا بكيلية حوغا لا بكيلية برد بكلوية وقدر كيس أي حديث كنوت الماضي قدر كالله بحناية لا بكيلو يبرد وحنا مهمة كل الدد بعد بدأ ينقل شوغا دد كاسي هل كان يوصل ديران العاق waxay yiraahdaan halka raashin ka iibiyo naga bixi sakaat fidriga laakiin uu kala qaalisay raashinkeena iyo koodu sakaduna asalnimo qofku meesha uu joogo raashinka uu qoodanayo la yiraahdo quutul qalib kaasu ayuu ka bixinaya marka bariis qaaliye cunaan basmaatiga iyo waxyaabaha la yiraahdo koodi waa in laga bixiyaa kii halka ku cunayeen waa in halka laga iibiyaa oo kan aadka u jaban aan laga iibin culimada qayb kamidina waxay leeyahay hadii kala ka qiimihiisa lagu bixinayaa lacag oo kay soo diraana waa baraarujin zakada iyada zakatul fitr waqtiga la bixin karo uu nabigu bixin jiray sallallahu alayhi wasallam ugu wanaagsan waa subaxa hore ciid qabla salaah intaan salaada la tagin ayaa la bixinayaa hadday dhacdo qofku habeenkii inuu bixiyo ama labada cisho u dambeeya bisha Ramadaan dib bale oo iyadana way bixin jireen asxaabtu ridwaanullaahi calayhim laakiin mar walba daliilka waxa lagu dadaalaa si uu inoo sheegay ama dhaqankii nabigu calayhi salaatu wasalaam waqtiga fadliga badan subaxa ciida intaanu qofku soo bixin inuu cid gudoonsiiyo ama wakiilkii uu qofkaasi soo dirsaday sikada iyada cidda ay ku waajibayso وقفك هيا قفك أن هيني الشرع وحبا مساري إلهي بأوحر لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها نفنا إلهي كل ما حسابتما يوحي أدي بوحانا هاي وحسيون بلا يوحك به حتى هدو قفك إساقا يدد كانوا كم مسؤولية هاي قايب كم إذا كبحين كراه انت أكران ما يوكبحين يا عاوة إلى بهريتو محوعنا يا هل كاسور لغايا وحي كسوهرا دادك انت يوقع دابو كبحين يا dadka aad ka mas'uulteed ka bixinaysaa waa qof kasto oo muslima sidoo nabigu sheegay midal muslimiin ba xadiid ku sugan qof kasto oo muslima waa kii yara iyo kii weynaa iyo rag iyo dumarkii iyo bariga jireen adoomuhu xataa xoriye adoomba gaar baa laga bixinay wadadka laga bixinaya qoyska islaamku wuxuu saaray wixii dhaqaalaha ninka ayaa la saaray ruuxa dumar ayada khayrka lagu maalgelinaya marka ninkii buu saaran yahay zakat fidrigu dumar badan baa jiro ragba la joogin oo iyagu caruurta masruufa waxba lagu ma leh haday ka bixisana waa iska sunna laakiin waajib kuma hayada agoonto kale hadii agoontii xoolo ay leeyihiin sakadani waa tii xoolaha kale waa faral xoolahoodun baa laga bixinaya oo qofka mas'uulka u ahay uu ka bixinaya dadka aad ka bixinaysa hadaa tay ninkii qoyska mas'uulka ka ahaa waa dadka masaariiftooda ay waajibka kugu tahay xaafada kula jooga ama meel kale ba jira biilkoodu dadku kugu waajibi hatta hada hooyadood kala tagtee waa ubadkaagi iyo oridaadi iyo aabiyo hooyo waalidkii badhay oo awooway ayayna ku jiraan laakiin dadka walaalaha iyo eedooyinka iyo qaraabadan guryaha inala jooga de masaariiftooda ihsaan baa loo siinayaa iyo samafal sida daraaddeed zakat fidrigooda qofka lagu ma leh hadduu qofku qalbigooda raali gelinayo si aanay oran maxaa la iga reebayna iyaga ha u dhibaa iska bixiyaan ila qofkii marka qani buu ku noqdo uu helay zakat fidriga waxa fiican sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii uu sameyn jiray inaynu ku bixino raashin lacag way taalo mid cascas iyo mid cadcad baa taalay oo dahab iyo lacaga الفضة والذهب صافي هذا تاع عاد وحبا كومو بخين جيرينه raashinku ku bixin jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam maantana raashinka iyo lacagta isku sibay dadkeenu ugu baahan ila 7 nooc oo raashinka bariga lagu bixin jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiis oo kamid aha garoorka waxa kamid aha timirta baalkan zabiibka la yiraahdo heeda sareenka iyo haruurkii arabakhido oo durra la isku oran jiray هذا لكن waxaynu quudanaa wuxuu u badan yahay bariiska iyo baastada iyo daqiiqda
ووحا قوت كاهدون إنما الله استعماله وحا لقو بحنايا أكيد كقلا لكن وحا راحة إيفا كيسيق الله استعماله ما هو وحا لقو بحنايا إمك السليدة يشرابك waxyaabaha soo dhan waxa lagu bixiyaa shayga la yiraahdo iyo xataa caanaha way iska raaxays caanaha qaybta lagu bixinayo waa caana booraha beliga aqad baa la oran jiro kayd bay gali karaan dadka la siinayo waa qofka faqiirka ah farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr duhratan lis-saa'imi wa du'matan lil-masaakin zakada nabigu waajibiyay iyada oo ilaahay uu ku nadiifinayo kii soomana maxaa la socda masaakiintana waxay u tahay ducma masaakiin almiskiin wal fuqara qariibun ma'a al-ba'd way isku dhaween faqiirka iyo miskiinku oo faqiirkii waa miskiinkii oo si yara leeyta marka waa gurma degdeg oo waxba sideedii qolo la raadin maayo sakada xoolaha la siin jiray kuwan hareeraheena fadhiya jaarka aba la siinayaa waliba dadka qaraabada ah الأقربون أولى بالمعروف dadka xigtada aba u si haboon in la siiyo xoolaha sadaqada la bixinayo iyo bulshada asturan ee xishoonaya وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ilaahay wuxuu ku amaanay muuminiinta xoolooda qayb cayiman bay siyaasada sakada oo kale qofka wax weydiisanaya iyo ka iska xishoonaya aan su'aal isagu u bixin labadaba sakada iyada marka la bixinayo dadkeenu waxay ku yar ridaan meel dhexe hebel baan la sugayaa miyiga jooga heblaaya iyo sugayaa yara maqan sidii bay ciid ku tagaysaa mabay ka bixinba cibaadada waqtigeedii waa dhaafisay sida daraadeed qalun bay noqonaysaa ajrigaas uu ku dhaafay waanaad xadgudubtay sidaana salaada waqtigeedan uga saari karin cibaadadana ciid lama dhaafin karo dadka aynu siinayno kuwa asalka la siinaya wixiisa ka waa kuwa meel inala jooga ee xoolaheena iyo jeebkeena ilaashanay nagu ducaynaya asalka sidaas weeyar rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam markuu hadlay wuxuu sadaqatun tuukhadu min aqniyaahim wa turaddu ala fuqaraa'ihim ala macna hadith wa saka ilaahay uu ku waajibay waxa laga qaadayaa maal qabeenkooda markaas isla maal qabeenka fuqarada meesha la joogta lagu celinaya naqlu zakati la yajuzu illa 'inda ad-darurati aw al-haaja sida daraadee sakadin meel kale la geeyo miyiga iyo tuulooyin kale waa marka halkan baahidu ay aad ugu yaraato halkana laga fuudyeelaya lagu la dadaalaya sakada dadka aan la siinayn ila shantii qole aan la siin jirin ama lixdii qole aan la siin jirin sakada xooluhum baa kuwan antana la siinay waxa kamid ah baytka rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa kamid ah qofkii gaalka ahaa waxa kamida maal qabeenkii adiga caruurtaadii ooridaadii waalidkaagi lixda qolo ma siinaysi sakadan sidaynu horaba soo sheegnay laakiin dadka inta kale waa la siin karaa arin kale aynu saxi lahayn waaqica bulshada in la saxawaa muhiim oo diintu waa diintii dadka iyo waqti walba la jaan qaadaysa qofku wuxuu oranayaa inta qaraabadiisu yimaadaan buu qofku hal qof baa bixinaya sakadiis ka kale u dhiibaya wuxuu leeyahay qudhiisa miskiin waradna iskaga bix kii kale u dhiibaya xabad qof wixii un baa lagu wareejinaya inta noo qof marka sagaalkii kaleba may bixinina kanun baa la isku celiyay maya salama doonayo dadka maal qabeenka oo dhan way bixinayaan la iskuma wareejinayeen dadka fuqarada baana la siinaya sidaasay ku badanaysaa sakada zakat fidriga la yiraahdo inta waxaynu sii raacin lahayn zakada waa faral waynu sheegnay shicaarka labaad iyo cibaadada kale aynu ogeynay cajiibka ah waxa weeye naxariista ilaahay aynu ku helaynaa waa ciidul fitr sanadii labaad ee hijrada markii rasuulku sallallahu alayhi wasallam gaaladii uu ka adkaaday markii dawladda islaamku ay caga dhigtay xoog heshay ayaa ahkaam badan la waajibiyay ila waqtigaas salka dhulka lagu dhigo diintii la dabiqi karaya lagu dhaqmi karay intii kala gaalba dadka ku daba jiray inkastoo aanu ka harinba zakada la yiraahdo zakat fidriga labada ciidood zakada xoolaha bisha ramadaan soomkeeda diyooyinka waxyaabahan magaha dadka qoomuhu gaaraan loo kala qaado waxyaabaha sanadkaas la waajibiyay